ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo dowladdiisa Itoobiya ayaa u muuqda inay ka guuleysteen Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa Soomaaliya. dhinaca kale Puntland iyo Somaliland oo labaduba hadlay ayaa waxa ay taageereen Itoobiya. dhaga kale mucaaradkii ugu badnaa oo Soomaaliyeed oo ay ku jiraan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Fahad Yaasiin, Sheekh Shariif iyo siyaasiyiin kale ayaa iyagana waxa la filayaa inay saldhig ay dowladda Soomaaliya ka soo weeraraan kana soo dhaliilaan ay ka furtaan magaalada ay Addis Ababa halkaasna ay ka dhigtaan. Itoobiyana waxay isku dayaysaa inay martigeliso la saaxiibto casumtana cid walba oo dowladda Soomaaliya ka soo horjeeda gaar ahaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. arrimahaas oo dhan baanu dul istaagaynaa iyo Itoobiya oo markaan u muuqata inay qaadayso tillaabooyin ka caraysiinaya Soomaaliya galaankalkeeda ku wajahan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo arrimahaas oo dhan baynu eegaynaa iyo maxay intaan oo dadaal ugu bixinaysaa arrimaha Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya maxayse ayadu markaan la gudboon madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma wuxuu isku gowracay gacantiisa kadib markuu dastuurkii waddanka wax ka bedelay oo cid walba oo wax ka bedelkaasi ka soo horjeedana ay u jabtay dhinaca Itoobiya. qodobadaas iyo kuwa kaleba waan ka hadli doonaa. muuqaalkan lay gare sii share gare la wadaag saaxiibada naguna soo bir khadka waxa si toos ah ugu jira wariye jaamaco kun agaasimaha wakaaladda wararka ee Juba Times oo si joogta uga hadla xaaladda Itoobiya iyo Soomaaliya intaba xogogaalna u ah labada wadan xaaladda taagan iyo khilaafka waxa la filan karay arrimahaasba. jaamac soo dhawow haddaad maqasho. go'aankii shalay dowladda Soomaaliya ay ku cayrisay safiirka Itoobiya sidoo kalena ay ku xirtay labada qonsuliyadood ee Itoobiya ay ku leedahay Hargeysa oo Somaliland iyo Garowe oo Puntland maxay ka bedeli kartaa galaangalka iyo faragelinta Itoobiya ee markaan sii xoogeysanaysa ee ku wajahan Soomaaliya. waxaan markaan dhinac ka qiimeeyno waxay nala tahay dowladda federaalka Soomaaliya Puntland iyo Somaliland labaduba kuma hayso gacantii kuma hayso waa amar guud oo soo baxay iyo qaab diblomaasiyadeed oo Itoobiya oo la dagaalami kartay u maleyn maayo in go'aankaasi fulayo. waxaa bayaankaasi daba socday in haddii Itoobiya ay diido inay ka baxdo oo ay qaadan weydo amarka ka soo baxay dowladda federaalka ay qaadi doonto tillaabo danka diblomaasiyadda iyadoo adeegsan doonta xeerka caalamiga ee diblomaasiyadda caalamiga. marka waa inay dacweyso oo ay dowladaha caalamka qaramada midoobe iyo midowga Afrika ku dacweyso ay dacwad ka gudbisa maahane u maleyn maayo inay awood adeegsan doonto dowladda federaalka Soomaaliya. waa gartay jaacu markii hore Somaliland iyo Itoobiya ay heshiiska galeen dowladda federaalku dadaal ay bixisay inay xirayso inay dabcan caalamkii hab diblomaasiyadsan ugu dacweysay oo waxay ka codsatay arrinta Itoobiya inay wax ka qabtaan adduunku. haddana Itoobiya weli kama aysan laaban heshiiskii ay la gashay Somaliland. haddana Puntland heshiiska galaangal la yeelatay. marka caalamka rajada ay Soomaaliya ka qabta maxay tahay iyadoo caalamka aysan aadin miyaysan dowladda Soomaaliya awood u lahayn inay Itoobiya iska qabato? awood afeed iyo warqado ay caalamka u diraan dowladda Soomaaliya inay yeelato maahane awood gacan ka hadal ah ama inay xoog wixii ay ku qabato dowladda federaalku ma lahan. sida muuqatana maba gacanta ugu jiraba isteediyada dalka oo idil. Somaliland waa gaar, Puntland waa gaar, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle iyo Jubbaland iyaguna waa gaar. arrintan diblomaasiyadda oo ay Itoobiya dhinac kastaba ka xireyso oo ay qaramada midoobay warqad u qoreyso, midowga Afrika warqad u qoreyso, inahaas inay ka rabto Soomaaliya ma ahane u maleyn maayo inay tallaabadani Itoobiyana qaadi doonto oo u dhagan gulaan doonto safiirkeeda. dabcan Muqdisho way uga yeeran kartaa laakiin qunsuliyadahani inay u yeeran doonto ay xiri doonto u maleyn maayo. waa culays diblomaasiyadeed inay saarto waa suuragal dowladda Soomaaliya. waayahay marka dhan kale aan ka eegno Itoobiya waa sida Soomaaliya oo kale waa federaal oo waa maamul goboleedyo walibana Itoobiya maamul badan. Soomaaliya iyadu maysan awood u lahayn inay maamul goboleedyada Itoobiya sida Soomaaliya kuwa Soomaaliya u faragelinayso inay Soomaaliyana faragelin ku samaysato maamul goboleedyada Itoobiya ka jira oo Amxaarada, Oromada, Soomaalida iyo Tigreega iyo kuwa la midka ah. shukow Itoobiya dowladda central government oo waxay leedahay adag
dowladda ciidamadii militariga iyo federal booliskuna meel kasta way joogaan madaxweynihii isku daya isagoonan wasaaradda arrimaha dibadda marin kasoo degaa muqdisho dee marka uu soo laabto toos ayaa loo soo garbaduubaya oo Addis Ababa lagu soo xiraya muqdisho fila Soomaaliya miyay awooddaasi in Muuse Biixi Hargeysa intay ugu tagdo ay soo xirto ama Siciid Dani intay ugu tagdo Garowe ay soo xirto marka ma suuragelayso oo isku midba ma ahanba dowladda federaalka Etoobiyana dowladdii dhexe ayaa awood leh oo maamul goboleedyada awoodahoodii waa la wiiqay ismaamul gudahooda ah ayay un leeyihiin laakiin awoodda sare arrimo dibadeed lagula macaamilayo waxa iskale un dowladda dhexe marka ma isku midba ma ahanba mana samayn karaan dowladda federaalka Soomaaliya inay maamulada isteediyada ama kililada Ethiopia xiriir inta ay la sameyso inay heshiisyo la gasho wax dhici kara ma ahan waa gartay hadan Ethiopia Somaliland waynu ogeyn Puntland hadday taagan tahay oo waata ay wada shaqaynta iyo wada iskaashiga iyo xiriirka ay sameynayaan maamulo kala jira oo Soomaaliya ku yaalo oo ciidamada Ethiopian ay joogan koonfur galbeed iyo Jubaland laakiin ayaga wali de Addis Ababa maysan tagin laakiin raja hada hayn baa jirta arintaas maxaa iyada laga fili karaa tan iyo markii khilaafkan uu soo baxay Ethiopia wafdi kala duwan ayay dirayeen oo 5 state oo Soomaaliya ay u kala direen Somaliland taashiiska ay la galeen marka laga yimaado Puntland wafdi bay u soo direen koonfur galbeedna wafdi bay u direen sidoo kalena Jubaland wafdi bay u direen heshiisyadani Puntland ay hadda la galeen dabcan waa iska heshiisyo fudud oo aan sidaas aan u weyneyn balse heshiisyada kale soo socda ama Jubaland ama koonfur galbeed ay la sii gali doonto Ethiopia ayaa ka sii halis badan wayna socotaa waanteeda iyo qorshaheeda Ethiopia waa ay wadaa oo adigu after Ramadan ayaaba la filayaa wixii ciida ka dambeeya in iyaguna ay heshiisyo la galaan oo Addis Ababa wada gaaraan madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo Jubaland waa sida xogaha ay sheegayaan iyagoo ka gadoodsan sida xogaha soo baxaya ay sheegayaan ballantii ay uga baxday filla Soomaaliya kadib meelmarintan dastuurkan ku meel gaarka oo qodobo badan oo ku jiray shirarkii ay wada yeelanayeen wada tashiyadii madasha wada tashiga qaran filla Soomaaliya ay uga baxday sida xogaha soo baxaya ay sheegayaan marka waa la qudareynaya in Ethiopia isteediyada kale ee hadda gacantooda ka maqan ay la gasho heshiisyo kale si ay culayska ugu sii badiso filla Soomaaliya waayo dad badan waxay isweydiinayaan jaamaco Ethiopia iyo Kenya maxay mar walba u doorbidaan maamulkii Soomaaliya dowladda federaalka ka soo horjeedaba ama xogaa isqabtaanba inay martigeliyaan xiriir la sameeyaan oo dowladda federaalka taas culays ku noqoto maxay arintaas u doorbidaan maslaxadooda ku jirta oraahda ah cadawgaaga cadawgiis waa saaxiibka inay adeegsadaan xiisadan hadda taagan Soomaaliya iyo Ethiopia ee arrimaha badda haddii filla Soomaaliya ama xukuumadda dhexe Soomaaliya ay uga dabaalan lahayd si diblomaasiyadeed arrimahan dastuurkana aysan isku furfuri lahayn waxa suuragal ah inay taageerada badi Soomaaliya oo idil ay heli lahayd marka laga reebo Somaliland balse arrintaani waxa ay tafaraaruq hor leh si kala dhexdhigtay Soomaaliya Ethiopia aad bay u qudareynaysa inay hesho mid kamid ah isteediyada koonfurta ugu xoog badan inay dhankooda soo raacaan wayna soo raacaysaa Ethiopia carada ay filla Soomaaliya ka qaaday meel kasta way la galaysaa Puntland iyo Siciid Daniba marka Ethiopia inay meelaha ay ka jilacsan tahay dowladda Soomaaliyeed ay qabato markasta iyada danba ugu jirta waayahay jaamaco ugu dambeyntii marka laga yimaado maamuladii Soomaaliya oo Ethiopia ku sii wada qulqulayo oo heshiis la galaya oo dowladda federaalka ay taas wadnaha jartay ma dhici kartaa in mucaaradkan oo farmaajo ay ka mid yihiin Sheekh Shariif oo maadaama farmaajiya Kenya aysan xiriir fiican aysan bariga horena isku dhacsanayn haatana aysan isgelin iyo Fahd Yaasiin iyo groupkaas inay intay Ethiopia saldhig ka dhigtaan ayaguna ay halkaas dowladda ka soo weeraraan haday ahaan lahayd mucaaradid iyo haday wax kala ahaan lahayd ba iyaguna ay dhinacaas u wareegaan oo mucaaradkeeda ay Ethiopia taageerto mucaaradka Soomaaliya waa lama qariibsan karo shuukow maxaa yeelay farmaajo ninkii ay isku fiicnaayeen ay iswateen baa jooga oo Abiy Ahmed ayaa jooga talada
golahan mucaaradka inay base ka dhigtaan Addis Ababa oo ay dowladda Soomaaliya halkaasi kasoo kormeeshaanna waa iska suuragal inkastoo uu ku sumcad beeli karo farmaajo oo taageero kaga lumi karto inuusan ku degdeginna waa suuragal maadaama markii horeba uu kusoo galay ololihii ugu horreeyay uu kusoo galay ay qayb ka ahayd in fargelinta dalalka deriska ah ay dowladdiisu wax ka qabanayso marka lama qaribsan karo marka shuko in laakiin mucaaradka laftigooda ayaa laba garab kala ah dabcan oo aan iswadanin oo aan isku kafad ku jirin Cabdiraxmaan Shukuur Xasan Cali Khayre iyo waa isku tiim oo ayagu gaar bay u socdaan farmaajo iyo tiimkan kale Siciid Danina dabcan waa gaar baan filayaa marka ayaga laftigooda hadda aan mideysnayn oo hal mabda iyo hal mowqif ku wajahan fila Soomaaliya aan haysan marka Ethiopia way sameynaysaa inay xarun uga sameyso halkaas ay dhahdo base halkan ka dhigta halkan haddii rabtaan ay maalgeliso ay fangareyso ay dhahdo bal qiiqush ku fura siyaasadan fila Soomaaliya waa suuragal way aad ba u mahadsan tahay jaamac